adabka labaad ee rabo markuu roobku bilowdo waa waqti duco weeye ilaahay la baryo saddexba ilaahay waa laga baryaa waana waqti nicmo ilaahay lagu shukriyo ama ducadu si guud nabigu alayhi salaam wuxuu ku taliyay in ilaahay aad loo baryo waa waqtiyada ducada la aqbalo qofkii hawli haysata ama dan guud ama mid gaar oo xanuun baa jira daymaa jira cabsi baa jira wax badan baa jira oo gaar reerka qaraabada xigtada dariska wax badan baa jira laba jeer ducada ilaahay marna ma soo celiyo buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka la aadaamo iyo marka roobka dhibicdu daayso markay dhibicdu si fiican roobku u socdo ducada ilaahay maba soo celiyo uu aqbalaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay bari oo ducayso markay dhibicdu isqabato waa chance iyo fursad weey ilaahay la baryo ilaahay ducada aqbalo yani ilaahay ducaysanno oo qaabilno ducooyinka waxaa kamid ah la rabo kuwii nabigu ku ducaysan jiray roobkan laftiisu ummadda waa rogi karaa saa darteed wuxuu dhihi allahumma sayyiban naafican ilaahu roob waxna anfaco waxna tara ka dhig ilaahu midna dhibo oo na halaago oo dhib loo geysta ha ka dhigin ducada ku daruu nabigu ku dari jiray ilaah roobna anfaca ka dhig waxaagii kaloo dhanna ducada waa la aqbalaa tanna si gaara lagaaga doonayaa nabigu u samayn jiray sala allahu calayh wasalam haddii roobku bato allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahu reebku meesha deegaanada ay nooga leexi meelaha duurka iyo dhiraha iyo buuraha iyo biyaha bareennada iyo ilaahu meeshaa ku ururi meelaha buuraha meelaha baadiyaha ee cidlada meelaha biyo mareennada ah ilaahu meelaha roobka noogu ururi baa la yidhaahdaa oo inta dadku degan yahay iyo dadkan uu ku duldhacaya hantidooda iyo maalkooda iyo naftooda iyo meelahan uu dhibku uga geysanaya ilaahu naga leexi saa darteed ilaahu noo hareera mari waay hareera marintaana loogama jeeda annaga naga leexiyo qolyaha kale rig ku siiye ilaahu saa darteed buu xadiidku sii fasiray wuxuu yihi allahuma cala alaakaami waaldiraami walawdiyati wa manaabiti shajari ilaahu meesha dhirtu ka baxayso tagogu meeshay marayaan meelaha buuraha oo badan hadda dushooda la degi jirin ilaahu meelahaas loogu siidaa annagana naga yaraha weeci taa weeye ducada ilaahay la barya subxaana wa tacaala dhinaca kalena shukri baa la yska rabaayo ilaahay nicmadiisa iyo raxmadiisa iyo fadligiisa in lagu shukriyo oo nicmada iyo abaalkiisan cid kale loo tiirin nabina ma keenin malagna ma keenin welina ma keenin xidig bixiye xidigiyana ma keenin nin falag akhriyana roob ma keenin rabbi baa keenay saa darteed baa nabigu wuxuu yidhi markuu roobku daay iyadoo roob daay subax xudaybiye la joogo ilaahay wuxuu yidhi ma ogtihiin buu yidhi waxay dhaheen ilaahay muxuu yidhi ilaahay rasuulkiisa ilaahay wuxuu yidhi subaxa waagu beriyey xalay roobku daayey addoommadaydu labay noqdeen qolo ani i rumaysan xidigiye iyo bala kastoo dhanna ku kufriye oo diiday iyo qolyo xidigiye rumaysan uu aniga nicmadaydii ku kufriyey qofka yidhi fadliga ilaahay iyo naxariistii baan roobkan ku hellay anuu i rumeeyey waxa kaloo dhan oo ku gacanseeyay qofka yidhi xidigiyaa keenay hebel baa keenay iyo cid kalaa roobkan keentay tirina ilaahayna waa inkiray cid kaluuna abaalkiisii iyo fadligiisii siiyey saa darteed fadli iyo nicmo rabbi loogu shukriyo wey inaan ugu shukrina u baahan ugu dambayntii dad baa ku waxyeeloobay dad baa ku dhintay dad bay daadad ku qaadeen dad baa dadkoodii ku dhintay dadka ku dhintay ee muslimkiihi waxay astaan u tahay khaatumo wanaagsan oo nabig alay slam wuxuu sheegay qofkii biyaha ay qaadaan ee ku dhintaay inuu shahiid yahay darajada shahiidka la gaarsiinayo darajooyinka darajada saddexaad wey annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa darajada saddexaad ugu sarraysa ee dad ilaahay agtiisa ay ka gaadhaan baa lagu gaarsiinaya fii saxiix muslim wuxuu yihi walghariiqu shahiidun qofkii biyo ku dhintaay waa shahiid ha ogaadaan qolaba waa la dhiman sababahun baa kala duwane wax kasta sheeg sabab kasta sheeg gubagabadu maxay tahay dhimasho u way shil buu galay wuu dhintay biyaa qaaday wuu dhintay qarax baa dhacay wuu dhintay natiijadu maxay tahay waa dhintay waay waxaasoo dhan waa asbaab saa darteed sabab la-aan lama geeriyooday dhahaan
laakiin nuxurku waa geerida qofna waqtigiisii kama hormarin marba haddaad dhimanayso khaatimo wanaagsan baa lagu farxaa saa darteed waxaan rabnaa inaan niraana dadkii ahalkii ay ka tageen ha ogaadaan horta waa la wada dhiman uuna dhiman lahaa qofkan laakiin inuu sidan ku dhintay waa bishaaro khaatimo wanaagsan ay u tilmaamaysa sida nabigeenu sheegay sal ly slam saa darteed iyagana qalbi qaboojis bay u tahay dadkii sidaa ku dhintayna mala wanaagsan oo si wanaagsan inay dunida kaga tageen ilaahay agtiisana ay wax wanaag weyn iyo darajo ku leeyihiin baan uga rajaynaynaa ay astaan u tahay saa darteed ogow alghariiqu shahiidu way siduu nabigu sheegay sal ly slam axkaam kale oo salaadaha iyo la xiriirta inaad insha allahu jumcada dambe waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo dhibkaa dadku ku dhinteen hareeraheenna dadku waa ku barakaceen majaangiya aaggan waa lagu barakacay dhinaca kale madaari iyo inaga ahana ummaddii waa ku luntay waa ku barakacday innagu nabad baan ku joognaa hantiya maalna waan ku haysanaa inaan indhaha ka fiirsannaa mise ummaddani inaan u gurmanno oon u kaalmayno oo waxaan tari karna tarnaa ilahi subxaana wa tacala markaan munaasabadan maalmaha soo socdaan ka hadli doonaaye ilahi subxaana wa tacaala munaasabadahan waa kuwii uu ka dhigay falaqtaxamal caqabay ka mid tahay dadka baahan roobkiina ku da-ayo guryihiina ka soo baxay guryahoodii roobku qaaday masaajid bay bartanka u hayaan kuwana dumeen gaal iyo muslimba iyadoon la kala saarin innaga xaafadan la yidhaahda kaamakuuji ilaa 10 kun oo qof baa barakacayaaloo bannaan jiifa maxaa inooga qorshaysan aniga adiga dadkaa tabaalaysanee xaqa dariska kugu leh qaarkoodna dheeriyay xaq muslim inay kugu leeyihiin ma inaan intaha ka fiirsanno oo inaan joog u dhihin baa sax maaha waa dad inaga mudan gurmad in la is-abaabulo ama dadkii maamulka xaafadda ha noqdaan ama maamulladii ganacsiyada ha noqdaan ama masaajiddu ha noqdaan meel laga fadhiyo ma joogto meel lagu fiirsadana ma joogto wixii karaan la kari karo ummaddani gurmad bay u baahan tahay marka inaan isu diyaarino hawshaa ka qayb qaadashadeeda iyo olaheeda iyo wax ku bixinteedu ajirna way inoo noqon ilaahayna waa inugu badbaadin xaq laynagu leeyaho waajib oo gudanaynana waa tahay allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma alhamna rushdana waacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaha allahuma inaa nasaluka ridaaka waljanna ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار